Guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta si rasmi ah magaalada Oodweyne uga bilaabay diiwaangelinta codbixiyayaasha ee tijaabada ah. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay diiwaangelintan tijaabada ah Komishinar Cabdikariin Dalmar. maanta oo Arbaca taariikhduna tahay 2 bishii 9 2020 waxa komishanka doorashooyinka qaranku ku sugan yahay magaalada Oodweyne halkaas oo aan ku soo bandhigayno qorshaha diiwaangelinta dalka ka dhici doonta dhawaan hordhaceedii oo ka dhacaysa maanta magaalada tan oo nasiib u heshay in lagu qabto iyada oo ah magaalada Oodweyne iyo magaalada Balligubadle oo isla iminka ka dhacayso iyadana diiwaangelintu waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb ah diiwaangelin cusub oo qofkii da'da gaadhay ama aan hore isu diiwaangelin ama inta uu ka noqday laba jeer isdiiwaangeliyay tii hore ka baabaaday lagu siinayo fursad uu isku diiwaangeliyo iyo mid ah kaadh bedel oo ah qofkii ka guuraya magaalo ilaa magaalo kale magaalo dhexdeed looma kala bedelayo Mas'uuliyiin ka kala socday saddexda xisbi qaran ee Ucud Kulmiye iyo Wadani ayaa iyaguna dhankooda ka mahadnaqay qaabka ay u socoto diiwaangelintan tijaabada ahi. runtii si fiican oo habsami oo qurux badan ayay u socotaa waxaanay tusaale u tahay in shaqadii doorashadu ay bilaabantay dadku ay doorasho u diyaar garoobaan dadku ay ogaadaan in diiwaangelintii bilaabmayso diiwaangelintii ay u diyaar garoobaan si cid kasta oo aan isdiiwaangelin xaqa ay leedahay ah in isdiiwaangeliso codkeeda bixiso ay ugu diyaar garowdo hadii Ilaahay raahdo insha Allah runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xubnaha komishanka ee halkan yimi xubnaha kale iyaguna xisbiyada qaranka ka socday maanta sida la sheegay waa tijaabo diiwaangelinta codbixiyayaasha oo tilmaan u ah in diiwaangelintii ay bilaabmayso doorashana loo socdo labada qodob ugu muhiimsan ee rag iga horeeyay sheegeen ayaana maanta aan halkan ka sameeynay waxaan u joognaa halkan tijaabada diiwaangelintii doorashada oo runtii laga qabtay degmadan Oodweyne waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka iyo shaqaalahooda oo runtii dadaal badan muujiyay waxa sidoo kale aan u mahadnaqayaa barsaabka gobolka iyo dhammaan howlwadeenada shaqadan hawsha gacanta ku haya Gudoomiyaha gobolka Daadmare Nuur Cismaan Guuleed iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay guddiga doorashooyinka qaranka isla markaana tilmaamay inay hawluhu u socdaan sidii loogu talagalay hawsha ay keeneen ay soo bandhigeen oo aad iyo aad u wacan ayaan ugu hambalyeynaa waanu soo dhaweynaynaa komishanka qaranka haddaanay madax dhaqameedka gobolka Daadmareed waxa kale oo halkan iyagana aan ku soo dhaweynaynaa saddexda xisbi qaran ee goobjoogayaasha ee maanta la shaqaynaya komishanka qaranka iyagoo midaysan marka horeysa halkan waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa amba aan nala joogay maalmahan oo soo dhaweynay komishankii qaranka ee Soomaaliland hawshoodiina waa wadaan way si fiican bayna u socotaa gobolkana waxaan ku faraxsanahay degmada Oodweyne inay nasiib u heshay tii lagu tijaabinayay inay noqoto sida Balligubadle oo kale sidana noo sheegay taana aad baan ugu faraxsanahay inaan noqono dadkii nasiibka helay saaka subaxii waxaan imiday halkan waxaan idhi anigu waan galayaa aniga tijaabada ha noqdo waa la iga aqbalay waa la isawiray waa la iga qoray magacii waxaan xaqiiqo ah oo soo baxday inuu soo saarayo cidii kaste hore isku sameeyay Muuse Saleebaan Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.